لا mahadle waxaan doonayaa oo aan shirkad xaafadan ku sameeyay inaan u cadeeyo bulshada aan Soomaaliyeed meel kasta ay joogto ciyaartii maanta baaqatay gobolka Sanaag iyo soo bixidii aan garoonka ka soo baxnay iyo lugaal sababihii iyo duruufihii keenay inaan ka soo baxno gobolka Sanaag waxaan xogaal u ahay wax badan oo asbaab oo gobolka uga soo baxay ciyaartii maanta waxaana koow ka ah oo aan maanta ciyaarta uga soo baxnay oo sabab u ah xiriirka kubadda cagta iyo wasaaradda maanta annagu waxay noo ahayd ciyaartayda saddexaad oo aan ciyaarno kulankanina wuxuu noo ahaa kulan qiimo badan balaarinta quruxda badan oo qiimaha leh oo dabadeeda taagan ay u jeedaana gobolkoodii waxay uga soo ambabaxeen inay xirfadooda iyo maxaan ku yiraahdaa kartidooda ku metelaan gobolkooda oo ay sumcadiisa iyo sumcadooda kor ugu qaadaan hase ahaatee waxaa nasiib darro ah wixii aan maanta kala kulannay xiriirka kubadda cagta oo maamulayay koobka gobolada Puntland waxa weeyaan xiriirka nasiib darrada aanu kala kulannay waxaanu annagu maanta nasasho noo ahayd 3 cisho oo hore aan soo nasanay 3daa cisho waxaanu diyaar garow ugu jirnay sida aan uga qayb ula ciyaari lahayn dhigayga gobolka Lugaal oo aan koobka ula ciyaari lahayn ciyaarta maadkaas oo annaga qiimo weyn ugu fadhiyay 3daa cisho waxaa laygu soo riixay dhowr caqabadood oo wajaha balaayirinteedii aan watay dhowrka caqabadood waxaa ka mid ahaa caqabadii koowaad ahayd 2 cisho ka hor waxaa la soo bandhigay warqad weyn la soo saaray in kabtanka gobolka Sanaag uu macnaha ganaax kaga maqan yahay ciyaarta Lugaal oo uu ganaaxan yahay iyo ninka lambar 8 u sita gobolka oo loox leh labadaaba waxay ahaayeen qorshayaal iga yimi xagga xiriirka markii aan macnaha ka dooday oo aan iska ka wada hadalnayna wax sabab ah oo nimanka lagu ganaaxo waa noo muuqan waayay waana isla qaadanay waxaan ahay caqabad la rabo in gobolka isku xirnaantiisa iyo kubadiisa lagu burburiyo si aan horumar u gaarin waxa ay xigay isla maalinta dhowrka cisho doodaas socotay liima sheegin caqabadaha ay sheegin oo maanta soo baxay markii aan kulanka u soo diyaar garownay caqabadahana waxay ahaayeen nin balaayar oo balaayirinta gobolka kamida in la yiraahdo wuxuu kaaga maqan yahay Mrs Nagastimaad oo 2 jaal u qaba taa markaan cadeynteedii raadinay oo aan soo cadeeyay ninkaasi sida uu ku qabo 2 jaalena aanu markii dambe wax cadeyna markii waayeen aan fiidiyoogii ciyaara sool oo ay ku doodayaan inuu balaayarka waliba balaayarka abgaalow la yiraahdo lambar 3 u shita gobolka la balaayarkaasi bal jaalaha meesha ku qaatay markii aanu ka wada hadalno isla eegnayna oo aanu ilaa fiidiyoogii soo saarnayna cadaatay ninkaasi inaan wax jaalaha qaadan iyagana waa cadaatay annagana waa noo cadaatay waxaan ku soo kala tagnay 11 iyo badhkii duurnimo waliba 12 waxaan ku soo kala tagnay xiriirka kubadda cagta inuu balaayarkii yahay balaayarii metelaya gobolkii garoonkana aan keeno si uu uga qayb qaato maajkii waxaan nasiib darro isbedel dhowr daqiiqo gudahooda inuu xiriirkii iyo maamulkii kubadda maamulayay koobka gobolada garoonkii markii aan galnay aniga iyo balaayirinteedii oo u soo diyaar garownay inay haddana yiraahdeen oo wajahay marxalad kale oo ah inaanu ninkii balaayarka ciyaaray iyagoo u sababeynaya waliba qaarkood inay yiraahdeen albitru wuxuu yiri haddii ninkaasi gelayo maxamed Soomaali tifriin ban qabanayo haddii ninkaasi ciyaarayo Soomaali wuxuu ahaa ninkii markii horena annaga baxwal iyo dacwadda ka soo gudbiyay aan jirin iyo ninka la dhaho looxle waxaan u arkaa koobkan inuu yahay koob cid loo qorsheeyay waxaana ay taasi tahay nasiib darro aniga oo ah macalinka gobolka waxaan cadeynayaa gobolkaygu inaanu wax macnaha khalada iyo wax aan ku yiraahday xumaan ah inaanu kaga soo bixin garoonka ee uu kaga soo baxay sabab ka yimi maamulka xiriirka kubadda cagta iyo wasaaradda waxa ahayd wixii xiriirku khaldo cidii aanu la noqonayno naga turxaan bixin lahayd ama hawshan gali lahayd waxay wasaaradda maanta wasiirku wuxuu sheegay inuu nimanka forfeit siiyay sida la sheegay forfeitkaasi dee gobollo hore baa macnaha wasiir waxaan isaga oran lahaa wasiirka gobollada mas'uul baa wada tahay isboortka mas'uul baa wada tahay waana ku wada siman yihiin haddii aad tiraahdo عين هلا سيو عيارته دب هاللوجو دقو قانون كنتي موجود سنة هذا قانون كبح الفورفويت هقعدته دو حنو مرنا يا قبل كان باوح النقطة قبل بلا مسؤولين والله أركي يلا المسؤولين تسدد بلا دي وركاس السعودية وحنو قانا إن هذا قبل فينا ودرس كحيل سنة هايو عن عيد قدم بيننا هاي هذه وركاس سيدا درس قدم قاضين مسؤولين تقبلوا قدم قاضين قدم قاضينا
ay ugu damqadaan gobolka oo ay macnaha xaqiisii iyo xuquuqdiisii ay ka hadlaan oo ka doodaan ama ha heleen hamow ama ha waayeen inay ka hadlaan unbaa annaga muhiimaddu tahay wixii culays ka saaraan taasina waa taa calaamad taxadalka waxaan ku soo koobaya anigoo tababar ku-xigeenkiina iga dambeeyo gobolka waxa caqabad iyo culays ku noqotay oo gobollada kale ku noqotay isku xirnaantiisa iyo kubad wanaagiisa iyo akhlaaqdiisa iyo waxyaabaha uu ku soo bandhigayo oo mucjisada ah oo ilaa hadda afka lagu hayo garoonka Miro Awaare waa dhalinyarada aqoon waxay guryahooda uga soo safreenna waxa weeyaan inay natiijo meesha ka keenaan inay wasaaradda iyo xiriirkuna hanjabka inta la ay ku keenaan iyagoo gobol u xagal duubayana oo runtii waxa weeyaan waa nasiib darro haddii arrintu sidan ku soo socotana anigu maanta dee waaba ka tegi karaa oo garoonka waa ka soo baxay waxaa dhici doonta inaan dib loo haleeli doonin inay isugu yimaadaan 9 gobol Puntland oo gobol walba uu intaanu soo aadin uu ka soo tashan doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa ka baxay waxaan ku soo dhaweynayaa بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا الكنت سبنا حدا من تبرها دول كسناد ضحكين كهيله سيدا ودي شغيبا ciyaarta wuxuu baaqatay waxa ahayd anaga ciyaaryahan baa markii hore dacwo ka qabnay bila oo iyaga ka tirsanaa waxaan sheegnay inuu laba jaal la qabo bunan dheer anagu markii hore anaga wasaaradda dacwo ahaan toonoonay ninkaas laba jaal loo qabaa waa sheegaya bunan dheer kadib adu waxaan ugu qancay ninkaas inuu hal jaal la qabo anagu og ninkaas laba jaal la qabo waa qaadanay waan ku ixtiraamnay go'aankoodii sidoo kale nin 3 casho ka hor qaatay ay leeyihiin wuxuu qaatay jaal oo mix next match kulanka 3 casho ka hor baan dheelnay shaashad weyn oo hadda soo lagu soo qori karo mix next match waxa weeye ciyaaryahanku markay kubaddu dhamaato in garsooruhu intuu garabka ka dharbaaxay yiraahdo ciyaarta dambe waa maqan tahay laba jaal la qabtaa waa sida sharciga ah lamana oran nilamana soo sheegin mana ogeyn maanta 12 baan war ka helnay hadda raadinayna gudoomiyuhu tababaruhu wuxuu ka tagay istiiti dheer nimanku waxay dhaheen waa ninkaas waa idin ciyaaraya garoonka keena anagoo duurkii diyaar garoobina war kala dhagahay ku soo dhacay ninkaas waynu ka dhaartaa inaanu jaalaha qaadan anagoo yaabano sida koobka dee yaa dhigay maan xiriirka kubadda cagta Puntland iyo wasaaraddu wada qaban koobkan iyaga go'aan ka dambeeyay miyaa jira waxaan u ogolaanay inuu dhaarto sidii qof dilay ayaan ku qananay balaayirka iyaga balaayirka iyaguna aaminsan yahay inaanu jaalaha qaadan anaguna aan ognahay maadaama wax dhiba anaga shida anugu waxaan go'aan ku gaarnay inuu ka dhaarto garoonka haddaan nimo dhaarti aanu diyaar u nahay ayaa misna waxa Maxamed Soomaali garsoorihii maanta hore dacwadda ka keenay Baxwal iyo Looxle oo laguna waayay ayaa waxa uu sheegay haddii ninkaas ciyaaro inuu soo fududiyo isagu tagayo marka Puntland xiriirka kubadda cagta Puntland iyo wasaaradda Maxamed Soomaali oo garsoore ah iyo gobolka Sanaag waxa la qiimo weynaayo Maxamed Soomaali oo garsoore ah annaga xiriirka kubadda cagta Puntland iyo wasaaradda wax annaga naga soo gaara ka gobol ahaan dhinac kasta sports ha noqotay annaga hadda annaga jaaba halka ku nimo oo isxilqaan iyo sharafta gobolka difaaca ku nimi annaga awalba wasaaraddu noo ma jirin waana ka tashanaynaa inaan gobolka Sanaag uu ka sii mid ahaado inuu ciyaaro gobolka Mudug baa idii haray shaqada garoonka tagay oo cayn la ciyaar lahaa hal xilibaan ba boost soo qoray ciyaarta dhameed waa la boojiyay Facebook laga baajiyay Mudug baa tagtay sidaas la mid ah forfeitka loo diiday gudoomiyuhu wixii cayn forfeit laga ma qaadanayo Sanaagna waa laga qaadanaya gudoomiyaha wasiirka kama yeelayno xalay Mudug waxa laga soo ceshay controlka magaalada Garowe bariyaa lagu soo ceshay waxa la yiri inuu qaato sharafta gobolka sharafta dalka sharafta Puntland ilaaliye baa yiri waa ognahay annaga de annaga waxaan naga waa siyaasiyiintayada waayo iyagana hal xilibaan baa cayn hadlay oo yiri ma jiro ciyaarta mana dhacayso waana laga aqbalay annaga dad baa nagu matira ama dadkaas aan nagabaya ama waxaan noqonaynaa niman looma ooyaana haddii forfeit la siiyo nugaal group kana waxa weeye koobkana nugaal baa loo dhigay oo awal baa lala doonay markii horena qorshoodu ahaa annagana wax dulmiya oo sharci ka baxsan ma aqbalayno mana yeelayno waxaan leenahay reer Sanaag annagu diyaar waxaan u nahay inaan gobolka difaacno kubad qurux badan koobkana diyaar baan u nahay inaan soo qaadno bas xiriirka kubadda cagta Puntland iyo wasaaraddu diyaar uma inay Sanaag ka sii mid ahaato dadka tartamaya koobkana doonaya waana mas joogaysan soo ciyaaraysan hadda waa baxay annagu ciyaartii hadda waan ka soo baxnay garoonka ciyaar ka dambe waxaan la leenahay Highland baa la lahayn ciyaartana ma ciyaarayno waana baxaynaa gobolka Sanaag baan dib ugu laabanaynaa waan naga go'an tahay haddaan sharciga wax laga bedelin si joogi meeno Garowe kamana ciyaarayno dib dambena gobolka Sanaag ugama qayb gali doono tartamada kubadda cagta gobolada Puntland ama santiis waa